education. noocyada arag la'aanta waa 10 kuwaasaan eegayna. Types of visual impairment. Please stay with us. Kabri Dahar College of Teacher Education. Hi students, this audio is for Qabidar College of Teachers Education. This is your teacher Farhan Gursum. Today we are going to prepare which speak about types of visual impairment. Before going to this, let us revise our previous class. In our previous class, we start chapter 2, which speak about visual impairment. We define also the term, what the meaning of a visual impairment, as well as visual blind, as well as visual acuity, field of vision. We have seen also identification of visual impairment, as well as causes, the 7 causes of a visual impairment. But in our today's video, we are going to see one by one types of visual impairment. Please stay with us. Okay, welcome back. In our today's topic, we are going to see types of visual impairment, which means when we convert to Somali, noocyada arag la'aanta waa 10 kuwaasaan eegayna. Okay, under the first one we have refractive error, which means qaladaadka wax ka qabshada bay ka dhigan tahay. Okay, when we say refractive error, this is a most common eye problem. Okay, it's a common eye problem. This happens when the light rays that enter the eye do not fall exactly on the retina. This happens when the eyeball is too long and the image falls in front of the retina, and what? Myopia or nearsightedness is resulted. Because of this, what will be resulted? Myopia or nearsightedness is result. Okay, why? Faladaha iftiinka ee isha galaya si sax ah uguma dhacayo isha, marka kubadda ishuna aad bay u dheer tahay. Marka sawirku wuxuu ku soo dhacayaa xubka, marka maxaa ku dhacay ninka myopia or aragti dhow waxa la dhaho dhibaatadaas ku dhacaya. Okay, that is called a refractive error. Okay, when we come to the second one, it is astigmatism. Astigmatism refers to distorted or blurred vision caused by what? Irregularities in the cornea or the surface of the eye. Both near and the distance object may be out of the focus. Okay, markaan astigmatism dhahno waxaa loola jeedaa aragga qalloocan ama qalloocan ee ay sababtu isdabamarin la'aanta ku jirta isha ama meelaha kale ee isha oo u dhow iyo kuwa ka fogba waxaa laga yaabaa inay diraada saaraan. Okay, as general marka la isku duuduubo, astigmatism means arag qalloocan oo ku jirta isha, sababtuna ay tahay isdabamarin la'aanta ku jirta isha. Okay, tasaddexaad waxa weeyaan diabetic retinopathy. When we say diabetic retinopathy, it is impaired vision, aragga daciif noqonaya due to what? Hemorrhage and the growth of new blood vessels in the area of the retina. Okay, markaan af Soomaali ku celino waxay noqonaysaa, markaan dhahno diabetic retinopathy, xaggan araggiiba daciif noqonaya. Okay, aragga daciif noqonaya because of sababtu waa maxay? Dhiigbax iyo koritaanka xididada ayaa, which means growth of new blood vessels. Okay, koritaanka xididada cusub ayaa ku baxaya xagga isha. Because of that, araggu muxuu noqonayaa? Daciif buu noqonayaa. That is what we call what? Diabetic retinopathy is impaired vision. Okay, due to hemorrhage and growth of new blood vessel in the area of the retina. This is diabetic retinopathy will be happen. Okay, ta afraadna waxa weeyaan amblyopic or lazy eye. Amblyopic, when we say, the another name of amblyopic is also lazy eye. Lazy eye means indha caajiza, indha caajiz noqday bay ka dhigan tahay. Okay, caajiz inta isha daciifka la iska xidho oo isha xoog la marka la isticmaalo tii kale inta la iska daayo, waxa ninkaasi wuxuu noqonayaa amblyopic buu noqonayaa or lazy eye. Tii kale way iska xidhaya, xabadun buu isticmaalayaa the stronger eye. He uses the stronger eye, which means separation of the weaker eye and the use of only stronger eye.
way jiraan kuwan oo kale kuwa hal indha isticmaalaya tii kale way xidhayaan xabadun bay isticmaalaan. That is called what amblyompic. Okay, the condition may be due to what eye muscle imbalance. Okay, de waxyaabaha waxaan keenaya waxa kamid ah due to what eye balance, due to what isku dheelitir la'aanta muruqa isha hadduu leeyahay ninkaasi xabadun buu isticmaalaa tii kale iska xidhaya because of what the muscle-ku isku xoog maaha tii kale iska xidhmaysaa toos. haddii kalena waxaa laga yaabaa inay noqoto khaladaad markuu ilmuhu korayo de hadduu isbaro inuu xabad indha iska xidho xabadun isticmaalo oo isla qabsadayba tana way dhici kartaa. Because of that what will happen, this amblyompic or lazy eye will become. Okay, so generally when we say amblyompic or lazy eye, dimness of vision in one eye causing separation of the weaker eye and the use of only stronger eye. This condition may be what due to eye muscle imbalance or reflective errors or other defects present when the infant is learning to use vision. Okay, markaan tii shanaad kusoo noqono waxa weeyaan under the fifth, which means types of visual impairment, we have cataract, which means cataract baa la dhahaa, is a condition of cloudiness in the lens of the eye that blocks what the light necessary for seeing clearly. Okay, waa xaalad xanibaysa isha, muraayada isha way waxbaa xanibaya wax cloud oo kale ina maxay ka xanibaysaa iftiinka laga maarmaynin oo de waxan muuqaalkana tusaya bay ka maxay sameynaysaa way ka xanibaysaa. Because of that waxba ma arkayo ninkaasi wax cad buu arkaa si caadi uma arkayo clearly ma arko, something cloud is happen on his eye. Okay, is this condition cloudiness in the lens of the eye that blocks what the light necessary for seeing clearly. De iftiinka lagama maarmaynin baa jira inaan wax aragno xagga isha, marka muraayada way naga xanibaysaa wax cloud wax cad baa jira oo ku baxaya meesha, waxaasa iftiinka blogareynaya marka ninkaasi wax kasta si caadi uma arkayo bay ka dhigan tahay. That is called what cataract. Okay, under the lihad we have glaucoma. This is a condition in which the normal fluid of the eye, which means aqueous humor, does not drain properly. This causes pressure within the eye, which may damage the optic nerve and result in what severe loss of sight or tunnel vision. Okay, when we say glaucoma, indhahenu wuxuu leeyahay dhecaan maaha, dhecaankaas waxaa loo yaqaanaa hammer aqueous baa la dhahaa. hadduu taasi si fiican u dareeri waayo waxay keentaa cadaadis isha gudaha bay ku keentaa oo laga yaabo de inuu dhaawici karoba narfaha aragga oo keena luminta aragga ama arag tunnel waxa la dhaho uu dhaawacaya. Because of what? Because of that dhecaan. Okay, hadduu si fiican u dareeri waayo. Okay, marka markuu xidhayo oo furayo markaas oo kale wuxuu dhaawacayaa araggiisa aye cadaadis buu ku yeelanayaa gudaha isha. Okay, when that kinds of problem happen, it's called what glaucoma. Okay, when we come to the seventh one, it is about what it say that retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa, when we say it is hereditary, wax dhaxal ahaan kusoo gaadhay weeyaan, dhibaatada sida dhaxal ahaan bay imaataa this visual impairment. Okay, which means from family. The individual first loses what peripheral vision and gradually central vision buu loos gareynaya. waxay ka dhigan tahay shakhsigu marka hore wuxuu waayayaa oo wuxuu lumiyaa aragga durugsan oo si tartiib buu ku luminayaa aragtida dhaxina. marka shakhsigu marka hore wuxuu luminayaa aragga durugsan markaana si tartiib buu ku luminayaa aragtida dhexe.